wafduus hogaamiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdilaaziz Xasan Maxamed Lafti gareeyay ka dheeray degmada Diinsor ee gobolka Baay way garoonka diyaaradaha degmada Diinsor ka dhawaay boqolaal shacabka maamulka degmada way bana garoonka diyaarada degmada ka dhawaay boqolaal shacab iyo maamulka degmada Diinsor wafdiga madaxweynaha iyo waliba iska jiran wasiiraha Xildhibaan iyo saraakiil iyo mas'uuliyiin kale madaxweynaha rasmi ah ku gooy garoonka diyaaradaha degmada Diinsor ee gobolka Baay reedan soo bileerna kasoobe wabasaas oo kale madaxweynaha uu saadagu isku gooy wadada maraasa degmada iyo xarunta hooyooyinka ee degmada Diinsor gadoomiyaha degmada Diinsor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigow yaa ku hadlay hadawaayo ka diiriyeen suubi wafdigu soo gaamay madaxweynaha koonfur galbeed alxamdulillah ilaahay maad iskale door mashaariic la furi oo geek madaxweynaha xalag jaraay garoonka weyn oo diyaaradda degmada Diinsor wadada dheer airport degmada Iskiraasa guriga hooyooyinka iyo stadiumka oo degmada xarag jaraan alxamdulillah ilaahay maad iskale maad akademi koonfur galbeed aan ma nagan waan iidan ka faraxsan geek garab noo siiyay heed tis plus iyo dawladda koonfur galbeed yaa aan noo siiyay warshadaas warshadan eed oo gaan ninsiin nin irgiliyahay بدنا قدومي ويبجر دقموين حرمة عنيا كحيتي ودقمة Diinsor دلها هذا القارة كيد كشدالك والياو بدن والبرشيد يو حرمة الدولة دلك أساس كحيتي Diinsor ما هتأمبها أنت أقبض هاي Diinsor أقبض هاشت ما يواجدك أو جهن يودلك أو جان سي نزيفادي جدكرت هو لفور وال أقبض أمام كويس أنك استوعبت إن ممكن بديت هاي وال دبات أو هديو لو صوبي كلام أنجلن مرك الحمد لله walbahadoon waan eediyadana shacabka iyo ciidamada imaam aan taladan Xasan Hussein Maxamed Sanqaale wasiirka gaadiidka irkiil ka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ku hadlay xaragooyo ku garoonka degmada Diinsor iyo hay'adda garanti ku jeesatay dhismaha garoonka reer Diinsor oo madaxweyne garoonka dhismihiisa ku wada qayb qaaday bil xaqiiqa aan badan ah ayaa goobroogay iyo inta badan dadweynaha isxilqaameen siyo horumarka deeri fadeen iyo ka dhisada fadeen garoonku wali kale aan mahadnagay mudane madaxweyne walaalay ama saaxiibadeen tiis oo yoon hoolun kaalanta ka badan ku qaaday iyo kaalmo badan ku helay dhinaca USAID-ki iyo gruubi kale wal alla waliyo kaalmo ku helayeen yoon walilana shaqada aysan qabateen eedeeda aan ka faraxsana mudane madaxweyne sida aad ogta dalka dhibaato badan ku jirta nimanka cadawga hay khawaarijta hay jiditay hirideen wala kaliya illa la ka dhagaagahay oo degmooyinka hadda bacda goobroog ee taad hindooda ka aragay WFB oo deeqa deersi ay degmadun meelaha ku degahaytoon waa garoonka diyaarado hadda uu furahayno way madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdilaaziz Xasan Maxamed Lafti gareemaha naga heedoy galan ku jeesadii mashaariicda shirkadiisana ku hirgeliyay degmada soona ballan qaadinta la dhameystiro doona wali galaba ku dhaman garoonka diyaaradaha ee degmada Diinsor farxada niyata inuu geeyka Diinsor koyna oo shaqan koyni waana ku bilaawna airportka degmada Diinsor walaana koyniya muhiimka ka weyn yahay in airportka la furo furitaanka airportka iyo meel kale oo nasaadi doona walan mahadnagay shacabka reer Diinsor oo sifay lahayn dhawaay nabadda iyo dawladnimadana inka amaanan yaan mahadnagay eedeeda mahadsantiin wala kale in mahadnagay hay'adda tiis ee ku qayb qaadatay dhismadan airportka eedan mahadsanyiin insha Allah oo ilaahay rawali la dhamaatiri doonaa dhismada airportka iyo walaaga qalab aan baahanay intana wal ku wiinay doona airport caalami ah naga doona wali rajeeyaan insha Allah oo ilaahay nolosha dadku in airport nagane jidatee la mar lamis dareere baawurkii raabta la kuraha Diinsor xamar la kaseeda ya jeelna insha Allah walaana ka shaqeeyana taasan naga doonto airport kana baahidiis jartay muhiimadiisa leeyahay wala baahaya wala isticmaali doono eedeeda mahadsantiin airportkii degmada Diinsor nin furiyo geeyka la ku bilaawana airportka degmada Diinsor walaay kale shaqo kale qabad doona insha Allah eedeeda mahadsantiin dhinaca kale madaxweyne Cabdilaaziz Xasan Maxamed Lafti garan kulan qaadi odayaalka dhaqanka degmada iyo ururada haraabta iyo ururada dhalinyarada degmada Diinsor ee gobolka Baay iyo ona ku codsaday madaxweynaha intiis wax ku qabada
dhibaatooyinku jara degmada iyo ku kueta hirnaadowka wadooyinka hagalo degmada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafte ganay ballan qaaday intuu war ku qabado doona baahiyaha tobadan shacabka degmada Diinsor waliba uu sabogaadii wada shaqeynta fayle ku dhaxayta maamulka shacabka degmada Diinsor ee gobolka Baay aragna eedan ka faraxsan danta uun koyni lama arrimooda hayti inuu Diinsor aragna baahida Diinsor taalo oo reer Diinsor wala iyo qabaan hadhuusan baahidiina ku jawaabno ya dareerkan hay kalamaana wala haytay wala mahadnagay TIS plus oo hay'adun oo shaqo fayle ku qabati Diinsor hatana wali rajayaan han kale oo bulshada baahidii ah in qabado doonaan inuu koonfur galbeed haan dawladda koonfur galbeed madaxweyne sheeyano ah magaalada Diinsor qaraagis dareenka isin qabtaan iyo baahida Diinsor baahanta insha Allah ku jawaabi doono dadaaleen amni fayle la suubi daruuf adaga ka shaqeeyteen ismi maamulkiin iska hirnaanta ka sharfantiin dawladnimada iyo wanaagga iyo horumarka la sheego haanaaso maamulka iyo shacabka iska hiran oo isla jaraya walba deero karo Diinsor beledkoodu dadka degan kulli walaalo wal kasta haadan way haytay Diinsor beled xadaara dadka ilbaxnimada iyo dagi jari Soomaaliyo dhan deganay Soomaali taariikh kale waqtiga la hamari oo Soomaaliya dhan lagu kasow iyo Diinsor ku bahay cid kasta haadan Soomaali wali weelay faylhaanta beledka iyo faylhaanta dadka weelay madun masiibadun dheedi oo lagu baha Diinsor walina gadi doonta insha Allah meela in ka fayle oo walbarasho iyo caafimaad iyo horumarba in ka fayle nagadi doonta insha Allah nuuna dadaalan oo wali ogaada sana lan walnin sheegi male binaadanka dareere laakiin wanaagiin leena nin sheeni ma xumaantiin malnin sheegi wala siyaasadu lankun wasiiru lan kursi shay weydiyo oo wasiir hal oo weelay leeyahay lankun hal in ka qaaday le wal aragay laakiinse lanka kasto xilhaay langa wada surun xumaangme wali faday meeli usulooda min ka qaaday laakiin xumaal kale malnin ka sheegna Diinsor faylata ila marqaatininga inuu meel kale ma ku koyn Yurub ma ku koyn wadanka leey roogna 30 sano Diinsor iyo wala ku dareeray horumarka iyo nabadda dareerta ogna marka wal fayle leeyna in sheegay ma wal xun malnin sheegna wali ogaada sana lanka kale oo dareero wali leeya shigshiyo in ka qaad gudoomiye oo weelo ma ahana ani jannad shirkeene ma iyana xumaan ma xil weydiisu aniba xilahay meela roogi habay kooy isbedelka madila deeri ko kale qobay laakiin wali la faday lan walba wala usuubi taariikhda dhikaas Faisal Dayo Serradia TV Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo